barkatooyin salaamay saaxiibayaal saan hore idin ku ballan qaaday waxaan idin wadaa scholarship lixaad jaamacadda Adelaide University ee waddanka Australia waa government scholarship weeye waa fully funded 2025 weeye scholarshipkan waxaa loogu talagalay saan hore idin kusoo sheegay ardayda internationalka opportunity-ga ama fursadda waxaa la siinayaa international iyo domestic student-ga labadaba waa program waa master iyo PhD program weeye programkan samarigiisa haddaan guda galno waa Australia jaamacadda waa Adelaide University waa programku waa master iyo PhD okay waxaa ku baxaya programkani $52,352 oo durationka waqtiga master programku waa 2 sano halka PhD-gana ay tahay 4 sano saan hore fidki marka scholarshipka waxaa ku bixi doona lacagtan aad u jeedin $52,352 2025 wixii raid lagu sameeyay mise email lagu sameeyay marka ardayda waxaa laga bixin doonaa lacagtaas iyaga oo laga caawinayo dhanka tuitionka dhanka nolosha dhanka caafimaadka iyo and the publication expenses waxaa ku jiri karaa ardayga in meekale loo bedelo ardayga fee-ga laga bixinayo oo ay sheegayaan diyaaradda ticketka haddii accommodationkii cuntadii wax kasta oo inta waxbarashada uu ku jiro ayaa laga bixinayo marka termiga relocation and publication expense waxyaaba badan sida journal subscriptionka haddii workshop jira oo kale programo badan ayaa soo hoosgeli kara marka programkani qodobkani marka ardayga macnaheeda waa wax walba waa laga bixinaya afar qodob oo muhiim ah lambar 1 ardaygu waa inuu noqdaa international ama domestic labadaba waa la aqbalaya PhD iyo master marka laga hadlayo ardaygu waa inuu yeeshaa okay awood mase inuu garanayo luqadda Ingiriiska haddii aan Soomaalihaan ku qeexno halkani waa inuu ardayga la imaadaa okay proficiency okay heer uu macnaha luqadda Ingiriiska uu ku hadli karo ama uu qori karo ama 3 qaybood 4 qaybood oo luqadda ku baranayay aan la tamaadin laakiin halkan kuma jirto wax la dhaho shahaado la isku xirayo marka waa inaad qori kartaa akhrin kartaa aad ku hadli kartaa waa intaas weeye marka interview inta lagu gujiray ku qiimeynayaan kabacdi waa halkaas weeye marka qofka Ingiriiska uu ku soo bartay high schoolka iyo jaamacadda degree-ga mise private uu soo bartay caadi weeye waa halkan shahaado la isku xirayo marka muhiim weeye halkan sidoo kale marka waxbarashada systemka maadaama uu kala duwan yahay marka PhD master aad doonaysid waa in degree-ga credit-giisa masaas qofkii degree soo bartay already okay uu buuxin karaa shuruudahan warbixin dhammaystiran marka jaamacadda boggeeda oo rasmiga ayaad ka heli kartaa iyaga marka okay eligibility-gaaga kow waa inaad la kulanto amba aad la timaada okay academic requirement-giis maxaa kamid ah waxyaabaha haddii aan ka soo hadalnay oo kor kaga soo hadalnay sidoo kale luqadda Ingiriiska inaad fahmayna inaad taqaanid credit-kaaga inuu maxana hadduu degree haddii aad soo bartay master aad doonaysid waa in credit-ka aad la soo kulantid master program marka waxyaabahaas waxyaaba la iska rabo oo kale marka sidoo kale waa inaad ku base garaysaa masterkaaga ama PhD-gaaga hadafka waxbarasho aad leedahay okay sidoo kale documentiga waa inaad soo diyaarisaa kow CV-gii transcript-gii research proposal haddaad master aad doonaysid iyo PhD labadaba reference letter-ga iyo inaad luqadda Ingiriiska aad taqaano okay meeshani maadaama shahaado laga codsanin marka warqad inaad qortid mise haddii shahaadaha haysid shahaadada inaad gudbisid ayaa noqonaya luqadda Ingiriiska mise waxaad leedahay okay degree-gayga iyo high school-kayga iyo waxbarashadayda luqaddaas ahayd okay mise proficiency aan ku leeyahay marka halkaas aad ku cadaynaysaa dhib la'aan marka qodobka afraad waa inaad supervisor aad heshid okay supervisor isku day inaad isku xidho mise aad la xiriirto jaamacaddaas jaamacadda waxa ka dhigo sababtoo ah inta badan qofka research ka doonaya waa inuu helaa supervisor waa inuu helaa marka qaabka inta badan supervisorada jaamacadaha loo xiriiro waa in page-ka jaamacadda aad geshid programada jaamacadaha ay bixinayaan macallimiintooda page-ka jaamacadda ayaad ka heli kartaa isla markaana marka qofka fieldigaasi PhD uu ka haysto adoo doctor uu yahay haddii kale waa inaad la xiriirta marka si aad mana uu kugu raaco waxyaabaha aad rabto iyo proposalkaaga qodobka shanaad wuxuu leeyahay marka inaad si online ahaan degree-gaaga usoo apply garaysid isla markaana automatically waxaa loo tixgelin doonaa inaad ka qayb tahay processka mise scholarshipka jaamacadda inta badan waxaa idinla soo wadaagaa scholarshipyada eligibility-ga ardayga ma buuxin karaa samarigiisa scholarshipka ma yahay mid fully funded ah marka wixii tartana iyo waxyaabihii dheeraadka ah in aad ku darsid adaa laga rabaa insha Allah delivery ana fursadaan kuu sheegi eligibility-ga ardayga ma buuxin karaa okay ardaygan qarashaadka ma laga bixin karaa intaas ayaa na soo gudbiya mise YouTube-kayga mise Facebook-kayga aan kusoo sheega inta badan waxaan soo bandhigaa jaamacad scholarship-yada page-kayga aan kusoo bandhigaa ardaygan shuruudaha ma buuxin kara ardayga Soomaaliyeed
eligibility-ga okay ma u qalma summary-giisa iyo waxyaabaha la iskaga baahan yahay ayaan sharxaa marka linkiga inta aad ku dhufatid oo aad raasatid scholarship-ka jaamacaddii page-keeda aad geshid okay CV-ga aad diyaarsatid wax walba adaa lagaga baahan yahay inaad samaystid marka anigu idin iftiiminayo bes waxaan baarbaari scholarship-yada haddii aan soo helo page-kii aan idinkula soo wadaagi eligibility-gi iyo shuruudihii iyo waxyaabaha la iska rabo in la gudbiyo iyo halkaasaan kaa caawinay marka processka inaad dhammaystirtid oo linkiga qaybta messajada Facebook-ga aan soo dhigay aad raacdid adaa lagaa rabaa marka dadaalkii boqolkiiba boqol in aad samayso guul baa idin rajaynayaa Facebook-ga iyo sheeka follow soo dheh sidoo kale YouTube-kana subscribe saaro asxaabtana la wadaag aad baad u mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu